waxaa khadka si toos ah ugu jira ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur oo kamid ah ismada dhaqanka ee Khaatumo wuxuuna tacsi ka dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe oo maanta gelinka dambe ku geeriyooday magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ugaas ugu horey ku soo dhaw warbaahinta bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadka muslimka ah ee garaadka taqaanay oo beesha dhulbaxantoodan geerida naxdinta leh halkana waxaa la fadhiya odayaasha beesha Boocame dhammaantiin waxaanu tacsi u diraynaa ummadda muslimka ah gaar ahaan waxa weeye reer Buuhoodle iyo caa'iladii garaadku ka geeriyooday waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu leenahay samir iyo iimaan geeriduna waa xaq aad iyo aad baan ugu tacsiyeynaa ummadda oo dhan iyo dadka reer Buuhoodle si gaar ah uu dhexdooda ugu geeriyooday garaadku waxa weeyaan waa la yaqaanaa taariikhdiisana waa la yaqaanaa nin mu'mina ayuu ahaa waxaanu rabnaa inuusan ilaahayna ku dhigi doonin qabriga su-aasha xaqaana u fududeeyo horeyna waxaanu rabnaa inuu u shaqaystay oo nin ilaahay ku xiran uu ahaa geerida naxdintada aad iyo aad baan uga tiiraanyoonaynaa dadka gaarka iyo caailada uu ka dhintayna aad baanu tiiraanyada ugala qaybgelaynaa waxaanu leenahay ilaahay hayna ka samirsiiyo garaadka in magac beesha kule ayuu ahaa oo la yaqaano samir iyo iimaan baanu leenahay ilaahayna awil khayr qaba hayna ka siiyo asna jannadii allah ugu bishaareeyo beesha Boocame oo dhan iyo waayeelkoodu tacsidaas waa u leeyihiin Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe allah u naxariistaanu leenahay ilaahayna hayna ka samirsiiyo ayaanu leenahay idinkana waxaan ka codsanaynaa inaad tacsida naga gaarsiisaan miidiyaha oo aad مثلا aad iyo aad looga gaarsiisaan beesha iyo caailada uu ka geeriyooday garaadkuna waxa weeye nin qaran uu ahaa nin khayr ah uu ahayn samir iyo iimaan baanu leenahay ilaahayna hayna ka siiyo ayaan leenahay asna jannadii allah ugu bishaareeyo waa tahay ugaas maxaad nooga sheegi kartaa taariikh nololeedka Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe ilaahay u naxariistee Garaad Soofe waxa weeye Garaad Cabdilaahi waa la yaqaanaa nin caan uu ahaa nin maslaxadeed buu ahaa nin nabadeed buu ahaa nin cibaado badan ayuu ahaa nin samaha ka taliya ayuu ahaa ragga ugu qiimo badan ee beesha ka dhashay Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka dhashay ragga ugu cibaado badan ee ugu maslaxad badan ayuu garaadku ahaa waana la yaqaanaa oo waa lagu yaqaanaa arrintaas marka intaas ayaan garaadka intii uu garaadka ahaana wax badan baanu wada shaqaynay wax badan baanu hawlo adag wada galnay wuxuu ahaa ninka maslaxadda marka aanu laysu yimaado ninka maslaxadda ka shaqeeya hadalka noo furi jiray noo khatimi jiray ayuu ahaa kaasina wuxuu ahaa ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur oo ku sugan degmada Boocame ee gobolka Sool aad baan ku salaamayaa ugaas